kulan wacan wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyeedka Duhur Cable Sports qodobada maanta ku daawan doontaan barnaamijyeedkeena Duhur haduu Ebenraal ka noqdo waxa ka mid noqon doono xidiga ugu fiican adduunka ee Lionel Messi ku biritaankiisa kooxda PSG oo markaana dhibaato aad u daran ay ka qabsatay maxay tahay dhibaatadaasi barnaamijyeedkeena Duhur ayaad maanta ku daawan doontaan kadib kulamadii laga ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda Yurub waxa barnaamijyeedkeena Duhur maanta nagu soo gudbin doonaa kala sareynta shanta horyaal ee qaaradda Yurub Arsenal oo kaalinta afraad dib u soo ceshatay City oo markaana doonayso inay sii dheereystaan hogaanka sare ee horyaalka Real oo markaana hadan adag ugu jirto sidii ugu guuleysan lahayd horyaalka La Liga kama marna kulamadii xalay laga ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda Yurub Barcelona oo xalay guul raaxale ka gaartay dhigeeda Osasuna Arsenal oo kaalinta afraad xigsanaysa markaana xoojisanayso Leicester ay 2 gool waxba ay ku garaaceen Newcastle gool waxba ayaa loo garaacay qodobadaas iyo qodobada nagu soo kordhaa ayaa daawadayaal ku daawan doontaan barnaamijyeedkeena Duhur aniga Cabdiqani Taraaya barnaamijka nidaadinayo farsamadii kaamirada وعبد السلام أحمد البلاوي ومعلمة سنين أي تاريخنا كويس سنتاي أفريقيا كمارس سنة كلا وذوك اللبي لبعتك قدما دي عاد مغشين وإتاسي كفا فاسد داود ديال كسر دبادة إيمكا أنا قبل أمني قدب كوهر يو حدقة حلقة فرنسا يو كهد باريس جرماني كاليان إمبابي أو الشيعي وقتك الرسمي أو مركان نيشيس كجوكتدا وأسرع دونه كهد ريال مدريد كعيارتو قرون كسانتياغو برنابو قدبريت كانوا وحانتا سنوغسي ديرين أيقوريين الظاهر ديني عمالقada wadanka Spain ee Real Madrid ayaa la ogaaday xilliga sida rasmiga ugu biiri doona xidiga Kylian Mbappe kaas oo ka soo boqoraya garoonka Parc des Princes ku ciyaartay naadiga PSG jimcaha soo aadan ee isbuucan dhamaadkiisa ayaana warbaahinta ay sheegtay in Kylian Mbappe si rasmi ah loogu dhawaaqi doono heshiiskiisa Real Madrid markaasi ay kula soo wareegtay xidigan ayaana beeca xorta wuxuu kaga dhaqaaqayaa garoonka Parc des Princes ku ciyaartay naadiga PSG waxaana markaasi uu u wareegi doonaa Real Madrid iyo sidoo kale garoonka Santiago Bernabeu oo ciyaartoy badan ee dunida kubadda cagta ay ku riyootay inay maalin fanaanada Real Madrid ay ku xirtay garoonkaasi waxaana markaasi PSG gabi ahaanba qoyska istaagtay xidigan iyo gorgortankiisa heshiis kordhinta ku aadan ee markaasi uu kala sii joogi lahaa xidigan PSG 23 jirkan reer Faransa ayaana doonaya in Real Madrid waayo fiican uu ku qaato ilaa haddana lama oga inta qandaraaskiisa uu gaarayo ama inta sano ee naadigan heshiiska uu kula joogayo markaasina wali lama shaacin heshiiska rasmiga balse waxa la ogaaday oo kaliya in maalinimada jimcaha soo aadan Kylian Mbappe si rasmi ah heshiiskiisa loo shaaci doono xashalay la ciyaaray kulamo ka tirsan shanta horyaal ee qaaradda Yurub Barcelona oo xalay guul raaxale ka gaartay dhinaceeda Osasuna Arsenal Emirates wuxuu ku xasuuqday kooxda Leicester City guul diriqeena waxay gaartay kooxda Chelsea xilli dambe كافي هافرتس ayaa fujiyay kooxda Chelsea qodobkaana waxaana diyaaro halkaas nagu sii dheereenayo wariyeena Falastiin Qalibifi natiijada ka soo baxaysa kulamadii la ciyaaray PSG ayaa 3-0 ku garaacday Baqdo kulan xiiso badan oo ay isaga hor yimaadeen labada kooxood halka Arsenalna ay xalay guul caaqibo leh ka gaartay dhigeeda Leicester City ciyaar ku soo idlaatay 2-0 taas oo ka saaciday Arsenal in ay soo ceshato booskeedii afraad ee habeen hore ay kala wareegtay Manchester United Napoli waxa ay gaartay guul kadib markii ay 2-1 ku badisay Chelsea waxa ay si dirqi ah uga badisay Newcastle natiijo ku soo idlaatay 1-0 Chelsea oo ay haysato hubanti la'aan xagga siyaasadda ah Barcelona ayaa dhankeeda iyana ka gaartay guul muhiim ah Osasuna ciyaar ku soo dhamaatay 4-0 kadib kulamadii laga ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda Yurub Sabtidii ilaa Axadii markaana daawadayaal isu gudbin doonaa kala sareynta shanta horyaal ee qaaradda Yurub siday kooxaha u kala hogaaminayaan Liverpool oo markaana doonaysa ku guuleysiga horyaalka Premier League walow kooxda Manchester City caawa ay boqon doonaan kooxda Crystal Palace
kadib kulamadii sabtidii ee axadii aan soo dhaafna laga ciyaaray shanta horyaal ee qaaradda Yurub waxaa isbedelay kala sareynta horyaalada qaaradda Yurub iyadoo kooxda Arsenal markaana kaalinta afraad dib u soo ceshatay walow kooxda Manchester United ay sabtidii aan soo dhaafnay ay kala wareegtay maadaama 3 gool iyo 2 ay ugu badisay kooxda dhigeeda Tottenham. haddii aan fiirino kala sareynta horyaalka Premier League kan ugu xiisaha badan adduunka oo ah kan ugu hardaga adag ee markaana ay ku jirto kaalinta afraad oo sanadkan yahay mid aad ugu dagaalamayaan kooxaha Manchester United, Arsenal iyo kooxda West Ham. kaalinta koowaad waxa uu hayo horyaalka Premier League kala sareynta kooxda hogaamiyo macallin Pep Guardiola iyagoo markaana 69 dhibcood hogaanka ku hayo walow ee caawa markaana ay boqon doonaan kooxda Crystal Palace ay ciyaari doonaan kulankoodii 29aad ee horyaalka Premier League. waxaa kaalinta labaad ku jiro macallin Jurgen Klopp oo kooxda Liverpool hogaamiyo 66 dhibcood ayuu shaqaystay 28 kulan oo ciyaaray. kaalin saddexaad waxaa ku jiro kooxda uu hogaamiyo macallin Thomas Tuchel ee Chelsea 59 dhibcood ay shaqaysatay 28 kulan ee dhashay halka afraadna ay fadhiyaan kooxda Arsenal 26 kulan oo ciyaareen 51 dhibcood ay shaqaysteen. tani waxay ka dhigan tahay in kala sareynta dhinaca horyaalka Premier League kaalinta afraad ilaa saddexaad uu yahay mid hardan aad u adag ku jiro. dhanka kalena haddii aan fiirino horyaalka Serie A oo sanadkani ka duwan xiisiga xamaasadiisana aad u sareyso ay ku loolamayaan ku guuleysiga horyaalkani Inter Milan iyo Napoli iyo kooxda AC Milan waxaa majraa u haya ama hogaaminayo horyaalkani Serie A kooxda Milan oo 63 dhibcood shaqaysatay 29 kulan ee ciyaartay horyaalka Serie A. kaalinta labaad Napoli ayaa fadhiso 60 dhibcood ay leedahay 29 kulan ee ciyaartay. Inter ayaana saddexaad fadhiso 59 dhibcood ay leedahay 28 kulan ee ciyaartay. naadigani Juventus oo lagu bartay sanadihii ugu dambeeyay ku guuleysiga horyaalka Serie A ayaa waxay u muuqataa in sanad kale ay markaana ay hardan ugu jirin inay ku guuleystaan horyaalka Serie A maadaama kaalinta afraad ay fadhiyaan 56 dhibcood ay leeyihiin ilaa iyo 8 dhibcood hogaanka sare ee laga hayo. haddii aan fiirino markaana horyaalka Bundesliga Bayern Munich ayaa hogaaminaysa 26 kulan ay ciyaartay naadigani 60 dhibcood ay leedahay. Dortmund ayaana ku xigto 25 kulan ay ciyaartay 53 dhibcood ay leedahay. Leverkusen 26 kulan ay ciyaartay 45 dhibcood ay shaqaysatay halka kaalinta afraad ay ku jirto kooxda RB Leipzig 26 kulan ay ciyaartay 44 dhibcood ay shaqaysatay. tani waxay ka dhigan tahay in kooxda Dortmund 7 dhibcood oo nadiif ah hogaanka lagu hayo walow uu kulan u baaqi yahay. horyaalkani oo markaana ay dhinaca ku guuleysiga lagu bartay in kooxda Bayern Munich sanadihii ugu dambeeyay ku guuleystaan ayaa markaana wuxuu noqonayaa hardan adag inay u galaan kulamada u dhiman maadaama ay markaana loolan adag ay kala kulmayaan dhinaca kooxda Dortmund oo kulan u baaqi yahay ee 7 dhibcood hogaanka uga hayaan. horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 haddii aan imaano hogaanka PSG ayaa hayso 28 kulan oo ciyaartay 65 dhibcood ay shaqaysatay. Marseille ayaa kaalinta labaad ku jirto 28 kulan oo ciyaartay 50 dhibcood ay shaqaysatay. Nice ayaa kaalinta saddexaad ku jirto 28 kulan ay ciyaartay 50 dhibcood ay shaqaysatay. Rennes ayaa kaalinta afraad ku jirto 28 kulan ay ciyaartay 49 dhibcood ay shaqaysatay. tani waxay ka dhigan tahay in 15 dhibcood oo nadiif ah ay hogaan ku hayso macallin Mauricio Pochettino kooxda hogaamiyo ee PSG. waxay ahaayeen markaana kala sareynta shanta horyaal ee qaaradda Yurub. PSG, City, Bayern Munich, AC Milan ayaa waxay yihiin hogaamiyaasha shanta horyaal ee qaaradda Yurub. guud ahaan daawadayaal halkaasi ayaa kusoo gabagabeynaya barnaamijyadeedkeena duhur oo aad maanta ka daawanaysay Raja Cable Sports anigoo Cabdiqani Xasan Ibraahim Cabdiqani Taraay ayaa barnaamijka wareedka duhurnida diinay inta barnaamij sida Allah ayna kulmi doono sida iyo nabadino.